ومانتا halkan xildhibaanadu ay ku doorteen kuna bedeleen waxay ku doorteen maayarka cusub maayar maxamed case oo ninka garabkayga fadhiya iyo maayar ku xigeenka degmada burco oo ah suldaan nuux waxa sidoo kale ay xilkii ka qaadeen oo ay bedeleen maayarka hore maayar cabdirasaaq iyo maayar ku xigeenkii maayar mukhtaar cabdi maxamuud kalfadhi aan caadi ahayn oo ka qabsoomay xarunta maamulka ee gobolka Togdheer oo ay isugu yimaadeen xubnaha xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa ku doortay maayir iyo maayir ku xigeen cusub oo ay yeelanayso magaalada Burco ee gobolka Togdheer ahna caasimada labaad ee jamhuuriyadda ee Somaliland kalfadhigan oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka Togdheer saraakiisha ciidamada booliska asluubta iyo dadweyne tiro badan oo reer Burco ah ayaa u dhacday si habsami leh toddoba xildhibaan oo kamid ah golaha deegaanka degmada Burco ayaa u codeeyay in maayirkii hore ee degmada Burco Cabdirasaaq Ibrahim Cabdi xilka laga qaado iyo ku xigeenkiisii Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryare halka ay isla toddoba xildhibaan doorteen maayirka cusub ee magaalada Burco Maxamed Xirsi Axmed Maxamed Case oo noqon doona duqa degmada Burco ku xigeenkiisana loo doortay suldaan jaamac nuuxa xildhibaanka ugu daada weyn oo shir gudoominayay golaha deegaanka degmada Burco ayaa doorashadu waxay u dhacday sida tan yaa ka codeynaya oo xilka ka qaadaya maayirkii hore Cabdirasaaq Ibrahim Cabdi yaa ka codeynaya oo xilka ka qaadaya maayir ku xigeenkii hore Mukhtaar Baaryare yaa u sharaxan maayirka cusub okay yaa dooranaya oo u codeynaya yaa u sharaxan maayir ku xigeenka cusub ha istaago yaa u codeynaya maayir ku xigeenka cusub ee degmada Burco ay taasi kadib barasaabka gobolka 23 waxaan isugu dhimi kalfadhigii aan caadiga ahayn dastuuriga ahaa marka hore Ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'ala in soo waafajiyay maalinta taariikhiga maalinta qiimaha badan maalinta isbedelka Burco ee muddada naawilaysay Ilaahay uu suurta geliyay inaan maanta isugu nimaadno oo maanta inoo qabsoomay kalfadhigii aan caadiga ahayn ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco waxa sida ku ansaxay oo maanta halkan xildhibaanadu ay ku doorteen kuna bedeleen waxay ku doorteen maayarka cusub maayar maxamed case oo ninka garabkayga fadhiya iyo maayir ku xigeenka degmada Burco oo ah suldaan nuux waxa sidoo kale ay xilkii ka qaadeen oo ay bedeleen maayirka hore maayir cabdirasaaq iyo maayir ku xigeenkii maayir mukhtaar cabdi maxamuud sidaas ay hadii Ilaahay ka dhigo inoo ahaanaysa xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo goobjoog ka ahaa ayaa sheegay inay si cadaalad iyo hufnaan ku jirto u dhacday doorashada golaha deegaanka ee degmada Burco sabtiya xafiiskii gobolka barasaabka in joognaa waxa maanta ka dhacay oo si qiimo leh u dhacay doorasho xalaal ah maayirka cusub saaxiibkay Maxamed maayir ku xigeenka suldaan iyo golaha deegaanka ee dhan kooramkooda buuxo oo u hambalyeynaa ilaa idinka insha Allah taala aniguna waxaan hadii xogayihii degmada ee la shaqeynaya saaxiibaday duqa cusub ee magaalada Burco Maxamed Xirsi Axmed Maxamed Case ayaa bulshada Burco ugu baaqay midnimo wadajir waxqabad iyo horumar waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa
وعن محدنا يا مركوب الرئيس إلهي مركب لبادنا أنت أنا دي شيء وحين ودم هذا كالفرد كان عادي جاهين وين تقولي سنة وين ودي تقولي سنة بينك تقولي سن شغف عم بين وضع هذا مركب لا يحيي إلهي وحن كبر ينا إلهي إنه فضوضية هوشة هلك دوني دي شيء وحويه قولها ديجانكو وحوي سدحي طبعا إياك استورته بدله كيدونا ندورته كيدونا نريده ده إلهي وحن كبر ينا إنه فضوضية هوشة أنت كدم بيسا أنت كدم بيسا إنه فضوضية دينا عكرة قدويان ربع وحن قباقية إن أي كتلا جران إن أي نوض الشقين في عن قباقينه ومالك ما أنت أنو قرب كيس خبصنا برع ومقالة داوين رنتي أو باهن تاريخ ذي إن مالت هذه يقول تاريخ ذي هذه يقول لسؤال عليه وكان لنا هاي الله يدم بركيه kalfadhigan ayaa ka dambeeyay kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland fasaxday doorashada golayaasha deegaanada ee degmooyinka dalka qaar kamida xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco oo tan iyo markii la doortayba la kuusaday khilaaf joogto ah oo soo noqnoqday ayaa ugu dambayna ku soo dhamaaday natiijo isbedel doorasho oo ka dhacda Burco عبسا فرح عبد الله تي في غرق سوماليلاند برعو